السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا موقال عصب وانو كغا hadlayno heshiisyadii ugu fiicnaa ee uu sameeyay tababara Sir Alex Ferguson intii uu ku guda jiray waayihiisii Manchester United. Sir Alex Ferguson waxaa lagu murmi karaa inuu yahay tababarihii ugu fiicnaa abid in ka badan 30 sano oo uu ku jiray xirfadiisa tababaranimo. Wuxuu ku guuleystay koob tiradoodu aad u badan tahay isagoo koobabkaas intooda badan kula guuleystay kooxda Manchester United iyadoo ay jireen xidiga badan oo ka soo baxay akaademiyada kooxda intii uu tababarayay Ferguson sida Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes iyo weliba Gary Neville ayaa sidoo kale waxa uu tababarahani soo iibsaday mawhibado badan oo yaryar isagoo ka dhigay xidiga caalamka oo dhan laga yaqaano. Muuqaalkeenu maanta waxa uu diiradda saarayaa 8 heshiis ee ugu fiicnaa ee uu sameeyay tababara Sir Alex Ferguson intii uu tababarayay kooxda Manchester United. Number 8 Ruud van Nistelrooy. Weeraryahankan reer Holland waxa uu 5 xilli ciyaareed ku soo qaatay Old Trafford isagoona dhaliyay 150 gool 219 kulan oo uu saftay. Goolashaas waxaa ka mid ah kuwa muhiim ah oo uu ka dhaliyay kooxaha ay xafiltamaan United ee Liverpool iyo Arsenal. Waxa uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican Premier League ciyaareedkiisii ugu horeysay ee United u saftay una sidoo kale kooxda kula guuleystay horyaalka xilli ciyaareedkii 2002-2003 oo ahaa kiisii labaad ee United. Waxaa kaloo la tilmaamaa inuu kooxda kula guuleysan kari lahaa koobab badan haddii aanu kusoo beegmi lahayn xilligii ay kor u soo kacday kooxda Chelsea iyadoo uu hogaaminayo tababare Jose Mourinho iyo weliba invincible-kii Arsenal ee uu hogaaminayay Arsene Wenger. Number 7 Nemanja Vidic. Nemanja Vidic waxa uu kooxda United kaga soo biiray kooxda Spartak Moscow sanadkii 2006 isagoona 8 sano la joogay kooxda Manchester United. Muddadaas inteedii badneed waxa uu ahaa mid ka mid ah daafacyada ugu fiican dunida iyadoo isaga iyo Rio Ferdinand ay ka dhigeen difaaca United mid ay adag tahay burburintiisu. Vidic waxa uu ahaa mid ku fiican dhanka kubadda kalida isagoona 2 jeer ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican horyaalka England. Number 6 Wayne Rooney. weeraryahankii ugu fiicnaa taariikhda Ingiriiska Wayne Rooney waxaa la saxiixday tababare Ferguson sanadkii 2004 isagoo markaas 19 sano oo qura jiray. Rooney waxa uu horey isugu muujiyay kooxda Everton balse waxay ahayd xilligiisii United markaas oo isu bedelay mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican caalamka. 253 gool ayuu dhaliyay 13 sano oo joogay Old Trafford taasoo ka dhigtay gool dhaliyaha ugu goolasha badan kooxda. Waxa uu hal mar ku guuleystay ciyaaryahanka xilli ciyaareedka isagoo sidoo kalena kooxda kula guuleystay koob aad u tiro badan. Number 5 Dennis Irwin. Irwin waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyadii Ferguson ee ugu horeeyay sidoo kalena mid ka mid ah kuwiisii ugu fiicnaa. Difaac dambeedkan reer Ireland waxa uu ahaa mid ka mid ah sababaha ka dambeeyay soo bixitaankii kooxda United iyo weliba noqoshadeedii mid ka mid ah kooxaha ugu fiican caalamka. 12 sano oo la joogay kooxda wuxuu urursaday 7 Premier League iyo 1 Champions League. Ferguson ayaa xidigan kala soo wareegay kooxda Oldham Athletic. Irwin waxa uu sameeyay intii uu ku guda jiray waayihiisa United khaladaad difaaceed oo yar. Xawaarihiisu waxa uu ahaa mid cajiib ah sidoo kalena uu isku muujiyay ciyaaraha waaweyn. Dhammaan tayooyinkan ayaa ka dhigay xubin aan kooxda ka go'in isagoona kooxda ugu dambeyntii ka tagay sanadkii 2002. Number 4 Eric Cantona. King Eric ama Boqor Eric sida lagu naanaysi jiray waxa uu ahaa sababtii ugu weyneyd ee ka dambeysay soo bixitaanka United sanadihii 1990-kii isagoona xilli ciyaareedkiisii koowaadba kula guuleystay horyaalka Ingiriiska. Cantona waxa uu saftay 185 kulan isagoona dhaliyay 84 gool kulana guuleystay kooxda 4 horyaal 5 sano oo uu joogay Old Trafford. Wuxuu kala caawiyay goolal aad u badan isagoo xilli ciyaareedkii 1992-93 noqday caawiyaha ugu fiican horyaalka Premier League. shakhsiyadiisa ayaa sidoo kale ka dhigtay mid ka duwan kuwa kale isagoona sanadkii 2007 loo magacaabay xubin ka mid ah kooxda qarniga ee horyaalka Premier League. Number 3 Roy Keane.
Roy Keane waxa uu kooxda United ku biiray sanadkii 1993 isagoona noqday xubinta ugu muhiimsan kooxda u ciyaaray 480 kulan isagoo badanka waayihiisa United ahaa kabtanka kooxda. Waxa uu ahaa hogaamiye garoonka gudihiisa iyo dibadiisaba. Roy Keane waxa uu ka ciyaari jiray boosas kala duwan isagoo ka ciyaari jiray booska burburiyaha sidoo kalena ka qayb qaadan jiray weerarka. Ligiisii uu sameeyay ciyaartii semifinalka ee Champions League sanadkii 1999 markaas oo ay la ciyaarayeen kooxda Juve ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah bandhigyadii ugu fiicnaa ee hal laacib sameeyo. Barlabo Peter Schmeichel xidigan ay ku naanaysaan taageerayaasha United magaca The Great Dane ama Danishka weynaa waxa uu ahaa xubin kale oo muhiim u ahayd guulihii Manchester ay gaadhay sanadihii 90-yadii. Golayaan reer Denmark waxa uu dhererkiisu gaari jiray 191 cm miisaankiisuna uu xilligaas dhaafi jiray 100 kilogram. Schmeichel ayaa kooxda United kaga soo biiray kooxda Burnley FC sanadkii 1991 isagoona sanadkii 1999 kooxda ka tagay isagoo kula guuleystay 5 horyaal, 3 FA Cup iyo 1 Champions League isagoona aad loogu ammaano bandhigiisii ciyaarta finalka ahayd ee Champions League sanadkii 1999 markaas oo ay wajaheen kooxda Bayern Munich. Badbaadintii uu sameeyay ciyaar ay la ciyaarayeen kooxda Newcastle ayaa lagu magacaabaa badbaadintii qarniga waxaana aan shaki ku jirin inuu ahaa mid ka mid ah goolhayayaashii ugu wanaagsanaa ee soo maray kubadda cagta. Cristiano Ronaldo Sir Alex Ferguson ayaa ciyaar uu la ciyaarayay kooxda Sporting Lisbon waxaa aad u soo jiitay da'yarka Cristiano Ronaldo kaasoo markaas u ciyaarayay kooxda reer Portuguese. Ferguson ayaa isla markiiba la soo saxeexday 19 jirkan. Ronaldo ayaana 6 sano ku soo qaatay Old Trafford isagoo joogay intii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2009 isagoo muddadaasi noqday dayman lagu qalinayay Old Trafford kaasoo dhalaalkiisu ka yaabiyay caalamka oo dhan. 118 jeer ayuu shabaqa soo taabtay ciyaareedkii 2007-2008 waxa uu dhaliyay 42 gool tartamada oo dhan isagoona kooxdiisa ku hogaamiyay guushii Champions League. dhamaadkii sanadkaas waxa uu ku guuleystay kubadda dahabka ee magaceeda loo yaqaano Ballon d'Or isagoo kaga adkaaday ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Ricardo Kaka. Ronaldo waxa uu sanadkii 2009 u wareegay kooxda reer Spanish ee Real Madrid isagoona gaadhay guulo aad u sii badan.